runtii haruntan macno weyn inoogu fidhisaa ka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ahaan waxay noo tahay harun aan aaminsanahay ujeedooyinka iyo himilooyinka aan ka leenahay dhanka suuqa shaqada waxaan aaminsanahay harunta kaliya inay tahay ka dhabeyn karta meeshan u socona ma aha meel yar waxaan laga rabana ma aha wax yar ka wasaarad ahaan haruntan waxay tahay mar labaad aan soo booqday marka hore waxaan ahaa anoo wasiir dowladda soo booqday haddana waxaa ilaahay qadar in anoo wasiira soo booqdo waxaan aaminsanahay inaan juhdigeena isku keeni doono sidii haruntan looga dhigi lahaa harun dhisan tayaysan ka shaqaysa sida ay ahaan jirtay si ka fiican insha Allah waxaa daliil kugu filan waxaa annaga dhammaan daliil noogu filan iyo astaan noogu filan 1985 oo ah almost 40 sano laga joogo dadkii soo dhiseen ka soo fikiray soo sameeyay inta naqshad iyo hanti soo geliyo dawladdii hore ahaan jirtay ilaahay ha u naxariiso qof ka soo qayb ka qaatay waan u mahadnaqay annagana aan ku rumeyn doonaa sidii himilooyinkood ahaan jirteen awaashan ku fikiri jireen in haruntan ay noqoto si ka fiican aan ka shaqeyn doona insha Allah ka wasaarad ahaan haruntan waxay yeelan doontaa insha Allah sharciyada yeeli doontaa oo ma ahan doonto kaliya inay noqoto heer Jarman harun aan farsamo kaliya ma noqon doonto harun waxay yeeli doontaa heerar iyo sharciyad ayaan ku dhisi doonaa waana si adkaan doona insha Allah waxaan aaminsanahay farsamada waxay tahay laf dhabar ay u tahay horumar kasto bulsho ay gaarto maraan dhaweed waxaan booqday wadamada kamid ah China aan booqday markaas waxaan ogaaday ii sheegeen wax kaliya ay ku horumaraan inay tahay waa xirfadaha waay qofku waa qof dhameystiran waay meel kasto ka dhameystiran marka anagana taasan aaminsanahay waa ogtiin jaamacadeena waxay soo saaraan sanadkii waxay soo saaraan kumanaan arday soo saaraan sidoo kale harumaha caafimaadka ayna waxay soo saaraan intaas oo kumanaan ay soo saaraan haddana ma aha kumanaankaas arday ma aha ku suuqa shaqada gala ma aha intee aadan badankooda hadda tusaalaha ugu yar aan ku soo qaadan kara dugsar sanadkan waxaa dhamay kumanaan arday dhamay inta jaamacad ku biirto waxay noqotay reedkood aad u yiriin soo inta dugsar soo dhameys intee aadeen meel ay aadeen ma lahayn laba meel ay aadeen bis number 1 qayb kamid waxay joogaan guryahay joogaan oo shaqo la'aan way xirfadii iyo suuqii wixii loo baahnaan ma hayaan waa number 1 qayb way qaybta labaadna waa qaybta la shaqeysa nimankan khawaarijta oo kufaarta diinta aan leen waana sabab wax kale keenay qofka fiir hadii tawjiihin waay ama shaqo ama wax loo yeeli waay ama u shaqeyn waay nimankii xumaa ka shaqeysan doona taasaana keentay inaan maalin kaas aan la dagaalno soo waxay la mid tahay annagoo boqolkiiba dhalinyaro ay yihiin boqolkiiba 70 wadankan ay dhalinyaro ayaana laga faa'iideysanayna waana resource asset ugu weyn waay marka laga hadlayo wadamada horumarkaas waxa lagu gaaraa waa dhalinyaro waay wadankaas ka dhalinyaro badan oo ka fursad fiican waa ka dhaqaale fiican marka anagana taas ay naga go'an tahay si gaar ah waxaan u maadnaqaa graduates dadka qalin jibiyay oo xafladan maanta qalin jibiyay waxa tiin maanta waa maalin weyn idin tahay ka wasaarad ahaan maalin weyn nooga tahay laakiin ogaada maanta waxay tahay maalin bilow waay waa beginning waay guulo ayaa idin dambe insha Allah ilaahay ka bari doona waxaan aaminsanahay qof kasto idin kamid waxaad wax ka bedeli kartiin wadankan saad ka warqabteen tusaale ugu fiican waxa loo qaataa Soomaaliya SYL waxay ay 23 qof ay hadda maanta waxay tiin kumanaanatiin wax badan aad bedeli kartiin waana aaminsanahay inaan wax badan bedeli karna waxaan rabnaa qof kasta waxaan rabnaa in farsamada la xoojiyo barashada xirfadaha waa shay kaliya maanta suuq shaqada la jaan qaadi karo waxbarashada la soo bartay oo jaamacadaha 10 sano la qaata ama 12 sano jaamacad la dhameeyay kadib guryaha la jeefta macno weyn ay sameeyeen waxaan go'an tahay 6 bilood markuu joogo harunta waxaan rabnaa inuu suuqa shaqada qofkii inuu shaqo abuurto oo isbedel aaminsana annagana waxaan ka shaqeyn doonaa harunta inay yeelato number 1 sharciyad number 2 curriculum oo la jaan qaado ama manhaj la jaan qaado suuqa shaqada oo hadba sanad ka dambe la asreen doona aan ka shaqeyn doonaa waxaan si gaar ah u mahadnaqaa dawladda Jarmal oo runtii dhismaha haruntan kaalin weyn ka qaadatay oo maanta waxaan ku fadhin iyo meesha istaagsan ayaga sababa waxaan kaloo si gaar ah u mahadnaqaa bangiga African Development Bank oo runtii ayagana ku howlan inay haruntan inkastoo aysan dib soo dhisi karin ama dib u yegleeli karin laakiin haddana waxaan aaminsanahay waxa noo qorsheysan haruntan ma wax yar wax badan waan ka bedeli doonaa insha Allah aada u mahadsantiin
ardayda waxaan u rajaynaa guul waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan mala ardayda waxaan ku boorinaa barashada farsamada waa shaqo ama mala activity fi alway aan ka soo gaarnay ambiid way saad ka warqabtiin nabi kas wuxuu soo ahaa mala wuxuu soo barin xirfadaha soo barin taasi waxay diil noogu tahay tusaale ugu fiican noogu tahay ambiyadan ku daysanayna waxaan rabnaa dhalinyarada Soomaaliyeed qof kasta waxaan rabnaa inuu barashada farsamada inuu ka dhigto number 1 inuu ka dhigto leh bil gudooda wax badan bedel kartaa saad ka warqabti fiiri annaga dadkeena mala ka shaqeey mala hoteelada badanaa waxa la keenaa wadamada dariska la keenaa dadka ka shaqeey laundries ka shaqeey ama mala feerada ka shaqeey dibidana loo keenaa taas macnaheed ma dhalinyar malahan miya taas macnaheed waxa naga maqan macnaha ama tayada ama fahamka aan ka qabna farsamada ayaa liidato saa darteed waxaan rabnaa qof kasta waxaan rabnaa inuu farsamada xoojiyo markaasaan gaari karnaa guul markaasaan gaari karnaa horumar waxa ugu yar naqshadaha oo kala ugu yar marka wax badan noo qorshay insha Allah aad u